عليكم صاحبيال maanta waxaan ku suganahay magaalada Bandiiraley maanta waxaan idin wadaa muuqaal aad uga heli doontaan ugu horeen magacaygu Cabdulqaadir Cali Cabdi Sigad waxaan ku suganahay afaafka hore ee Hotel 24 waxaan rabaa maanta inaad aragtaan in Bandiiraley horumar ay sameysay waliba lagu soo kordhiyay adeegyo aad bulshada muhiim ugu ah kuwaas ay kamid yihiin dhismaha gadaasheeda ka muuqda inna aan aragnay albaabka hore ee Hotel 24 inna aan aragnay gudaha hotelku wuxuu ka kooban yahay dhowr qaybood wuxuu leeyahay sida hadda hortiinaba ka muuqata garoon hadda ay farsamadii ama maaragtay dib u habayntii ku socoto oo loogu talagalay kubadda cagta in lagu ciyaaro sidoo kale wuxuu leeyahay qaybtan oo ayadana ah qayb chief ah oo banaanka hore ta ku taala waxa oo kale uu leeyahay sida idin muuqataba in aad looga shaqeeyay dhirta hotelkan oo wali waxaan joognaa qaybta ugu horeysaan joognaa waxa dhiman qayb kale oo ah hotelka qaybtiisa dambe waxaan tagi doonaa howlalka shirarka loogu talagalay sidoo kale waxaan tagi doonaa qayb kale oo dambe ayadana maaragtay howlal kale oo yar yar oo loogu talagalay ayagana shirarka in lagu qabsado xafladaha aroosyada waxa soo dhan inna marka waxaan gudaha u galeynaa hotelka qaybtiisa dambe waxaan ka cudur daaranaynaa in dhismo uu ka socdo maadaama bil Ramadaan lagu jiro oo uusan hotelku furnayn maqaayadihiisana aysan shaqaynaynin ganacsadihii maalgeliya hotelkani wuxuu go'aansaday inuu dib u habayn ku sameeyo asoo ka faa'iideysanaya bisha Ramadaan marka dhismo ayaa ka socda gudahan u gali doonaa waa arki doonaa qolalkan arki doonaa howlka shirarka arki doonaa soo dhawaada galnay hotelka wuxuu ka kooban yahay ilaa iyo 20 qol ayuu ka kooban yahay hotelkan qol walba waxa uu leeyahay sariirihiisi wuxuu kale oo leeyahay musqushi oo dhexda ugu taala iyo qaboojiyaashii haatan sida idin muuqata halkani waa receptionkii qolalku waa labada dhinac wuxuu gadaal dambe ku leeyahay qayb nasiino oo loogu talagalay in dadku ku nastaan sidoo kale tan dhanka kale horena sidaad hore u soo aragteen wuxuu leeyahay beer weyn uu leeyahay meel la fariisto oo leeyahay oo dadku ay maaragtay waqtiga ku qaadan karaan marka waxaan arkaynaa hadda mid kamid ah qolalka ayaan arkaynaa hadii Allah subhanahu wa ta'ala karaal noqdo si aad u aragtaan horumarka ay magaaladu sameynayso iyo waliba maaragtay ganacsadahan qurbaha ka yimid ee ku dhiiraday inuu deegaanka ka sameeyo hotel noocan oo kale waxaan dhihi karaa waa hotelka kali ah ee magaaladan Bandiiraley ka jira waxaana isleeyahay inuu xitaan la tartami karo hoteelo badan oo maaragtay gobolada la midka ku yaala marka nakana aan gudaha galno sidaad arkaysaanba waa kana waxa loogu talagalay laba qof oo wada socotana way seexan kartaa sidoo kale wuxuu leeyahay koobdiinadiisii meesha dharka la gashanayay musqushi waa kana qaboojiyaashiisii buu leeyahay waxaan rajaynayaa inaad aad uga heli doontaan marka aad timaadaan Bandiiraley hadda soo booqataan hadii aad safar tahay uma baahnid inaad maaragtay safar dheer gasho halkii aad ku nasan lahayd waa 24 hotel
oo ku yaala Bandiiraley soo dhawaada haddana waxaan rabnaa inaan idin geyno dhanka kale oo ah howlalkii loogu talagalay shirarka in lagu qabto xafladaha in lagu qabsado qalin jabinta shirarka maaragtay siyaasiga ah marka ayagana balna keenay in la arko sugannahay mid kamid ah howlasha 24 hotel waa sidaad aragtaanba wuxuu ku yaala banaanka ma ahan mid gudaha ku yaala qaybta banaanka qabow ayuu ku yaala wuxuu leeyahay dhir dhinacyada ayuu ka furan yahay waxa lagu talagalay shirarka kooban in lagu qabsado waana meel aad u qabow dhinac walba dhir uga beeran tahay marka waxaan hubaa hadii aad timaado ama aad xaflad leedahay ama aad ku sugan tahay maaragtay deegaanada u dhow Bandiiraley inaad maaragtay soo booqan doonto shirarkaagana ku qabsan doonto haatanna waxaan tageynaa labada howl kale ee aad ku weyn ee lagu talagalay aroosyada iyo xafladaha hadda waxaan ku suganahay holka ugu weyn ee 24 hotel sida gadaasheeda ka muuqatana ardadii ka qalin jabisay caafimaadka waa halkii xafladda lagu qabtay sidaad arkaysaana holkani wuxuu qaadaa qiyaastii ilaa 400 oo qof waana holka lagu dhigo xafladaha inta badan oo maaragtay bulshada reer Bandiiraley ay ku dhigtaan xafladaha marka waxaan leeyahay ama aan dhihi karaaba waa mid kamid ah howlka ugu waaweyn ee reer Galmudug ay haystaan Bandiiraley baana nasiib u yeelatay waxaana suurtageliyay ganacsade u dhashay degmadan isla markaana qurbaha ka soo laabtay waxaan haatan la kulmi doonaa oo wax ka weydiin doonaa asaasii fikirkan ama taabigeliyihii barnaamijkan quruxda badan hotelkan iyo howlkan iyo beeraha aad aragteenba marka inakana saaxiibayaal hadda waxaan la joogaa ama aan maaragtay la kulmay asaasihii ama shakhsigii curiyay fikirkan aadka u quruxda badan waana shakhsigan dhankayga socda Cali Axmed Xayd wuxuu ahaa qurba joog nolol fiican ku haystay qurbaha balse wuxuu ka doorbiday inuu yimaado deegaankii uu dhashay isla markaana uu maalgeliyo kuma simin inuu intuu maalgeliyo qurbihii iyo qabowgii iyo noloshii qurxooneed uu haystay uu dib ugu noqdo balse wuxuu ka doorbiday inuu ku dhex noolaado bulshadiisana uu tusiyo in maaragtay deegaankooda ay maal gashan karaan isla markaasna ay ku noolaan karaan waliba nolosha qurbuhu inay ka qiimo badan tahay nolosha uu hadda ku sugan yahay Cali ku soo dhawow wadaway sigad aad iyo aad maaragtay maantay farxad bay ii tahay rag saaxiibadaya wiilashaydii baa ila jooga magaalada Bandiiraley sidoo uma taqaana oo su'aal bay idin sheegay halkaan aan ku suganaana waa hotel 24 marka dadku Soomaalida waxay iska yiraahdaan qurba joogtu aan waxaan